Asalaamu calaykum waraxmatullah daawadayaasha ku xiran miid maaxatay iyo Siciid Xagaa aad baa u mahadsantihiin waxaan idin wadaa jawaabihii su-aashan oo aan wiigii hore soo geliyey bogga YouTube-ka aan ku leeyahay ama barta waa laga soo jawaabay waxaan u malaynayaa ilaa 2 qof inay si sax uga soo jawaabeen laga yaabo in intaa ka badan yihiin qaar badan baa igu soo diray sida hoose luuqa igu soo diray oo yacni qaar badanna way garan waayeen runtii marka waxaan rabaa 2 su'aalood oo aan wiiga idin weydiiyey inaan ka jawaabo hadda su-aashan waxay ahayd haddii tiro halkan lagu daro tiro kale keenaysa 8 haddii tiro halkan lagu daro tiro kale keenaysa 13 iyo haddii tirada halkan lagu daro tiradan kale keenaysa 8 haddii tirada halkan laga jaro tiradana keenaysa 6 maxay tahay marka way fududahay aad bay u fududahay waxaa lagaa doonaya mar walba inaad ogaato qaabka 8 horta maxaa ii keenaya 8 waxaa ii keeni kara dhowr waxyaabood oo isbiirsaday ayaa keeni kara dhowrkaas waxyaabood waxaa ka mid ah number 1 haddii 4 loo geeyo 4 ama lagu daray 8 way keenaysaa haddii yacni 7 loo geeyo 1 8 way keenaysaa haddii 3 loo geeyo 5 8 way keenaysaa waxaasoo dhan 8 way ku noqonaysaa laakiin waxaa muhiim inaad ku xisaabtanto labada tirada halkan aad gelinaysa iyo tiradan waa inaad kusii xisaabtantaa ileen maxsuul kale halkan ku yaala wax soo baxaa la doonayaa waa tahay haddaba aan bilaabo maxaa halkaa geli kara oo tusaale ahaan noqon kara haddii tiro loo geeyo anoo ku xisaabtamaya qaybtan ku xisaabtamaya waxaa noqon karta 3 iyo bar ama 3.5 haddii loo geeyo 4.5 waxay noqonaysaa 8 waa 3 loo geeyo 4 iyo barkan oo laysku geeyey 8 waa sax xaggaa marka sidaas ayay sax iigu tahay haddaba maxaa 13 ii keenaya marka ilaan xaggan waxaan ku haystaa 3.5 3.5 marka halkan ku haysto maxaa 13 ii keenaya way iska fududahay waa 9.5 waka haddii 3.5 loo geeyo 9.5 waxaa soo baxaysa 13 marka waxaan haystaa isku darkanna waa ii sax isku darkan kalena waa ii sax maxaa loo baahan yahay isku darkan kale haddana maadaama isku darka weli aan wado marka 4.5 haddii tiro loo geeyo soo baxaysa 8 waa maxay dee xaggan le ka soo qaada awalba sidaasay ahayd 3.5 okay 3.5 okay 4.5 haddii loo geeyo 3.5 waxay noqonaysaa 8 waaya haddaba xaggan marka 9.5 haddii laga jaro 3.5 waxaa kuu soo baxaya 6 sidaas ayay sax ku tahay qofkii sidaa usoo qoray si sax ah ayuu uga jawaabay waa la kala bedeli karaa halkan 4.5 halkan waa la keeni karaa 3.5 halkan wax macnaa ma samaynayso 9.5 laakiin muhiim waxaa ah haddaad xaggan 9.5 geyso xagganay kaa qaldamaysaa marka sidaas ayay noqon kartaa jawaabta rasmiga sax ah laakiin haddaan ku yiri waa la kala bedeli karaa macnaheedu hadda 4.5 halkan la geliyo xagganay haddana ka qaldamaysaa iska faham marka mid walba meesheedaan u dayn doonaa insha allah 3.5 4.5 9.5 iyo 3.5 xisaab sidaas ayay sax ku tahay waa tahay haddaba waxaa jirtay su'aal kale oo aan idin soo weydiiyey haddaad xusuusataan oo ahayd shaaha iyo waxa ku saabsanayd haddaad xusuusataan qofaa ku yimiday shaah bilaa sonkora karsatay qofka markuu ku yimiday wuxuu ku yiri sokor iigu dar haddaba labadaada gacmood ama gurey ahaw ama midig ahaw teebaa qasida ama walaaqa sonkorta ku fiican ayay ahayd qaar badana ku rafteen weli si saxa qof ugu jawaamaan arkin laakiin hadda hortiinaan jawaabta ku bixin doonaa insha allah sidaad arki doontaan waay xaggan ii dhig okay shaahi waa kan koobkii shaaha waa kan koobkii shaaha ahaa waa kan
xaggana waxa yaala sonkortii bal u fiirso waxaan isku dayi doonaa bas sida ugu macquulsan lagu fahmi karo okay sonkor iigu dar aniga hadda waxaan isticmaalayaa gacanteyda midig okay maxaan kuugu daraa ma qaadan kuugu daraa mise laba qaado qaadi iigu dar okay hal qaado kaba soo qaad waaye wad ku daray okay sonkortaad ku dartay su-aasha maxay labadaada gacmood teebaa qasidda ama walaaqa sonkorta ku fiican marka shaaha lagu daro soo ma okay waa midig wareeji waa bidix labadaba bidix ku wala ama midig ku walaaq wax macnaa ay soo kordhinayso ma jirto jawaabtu waxay noqon doontaa waa inaad isticmaashaa qaado ama malqacad qofba sida u yaqaano marka labada gacmood taa doontidba hayse waxaa qasidda ku fiican qaadada ama malqacadda ilaan gacanta maad gelin lahayd saad u qasi lahayd ilaan ilaahay caqligu ku siiye may ama bidix ow midig ahow jawaabta marka runtaa waxay tahay ama saxda ah waxaan ku qasi lahaa labadeeda gacmood teebaa qasidda ku fiican ama jawaabtu waxay noqonaysaa ama bidix aan isticmaalo ama midig qaadada ayaa ku fiican qasidda jawaabtii labada jawaaboodna sidaasi ayay ku dhammaadeen shaahana ishiina ku jirta isku cabi maayo aniga waa mahadsantihiin waa insha allah su-aal kalan soo wada hadda aan soo gelin doonaa insha allah baltaana isku daynan laga soo jawaabo waad mahadsantihiin dadka asxaabta ku xiran bogga youtube kamid maxate saciid xaga afrax asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu